kulanti wacan khiyaaray kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay muuqaalkeena waxaanu ku eegi doonaa waxyaabaha ay wargeysada caalamka ay ka qoreen saxada kubadda cagta. muuqaalkeena intaana bilaabin saaxiibayaal like sarah sina share gareysa saxab badan uu gaadho haday tahay markii ugu horeysay aan soo booqatana fadlan rukumo oo kambalelkana furo saad la socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqaaqa suuqa kaliibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdaada. mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal haddaynu ku bilowno Alexander Bastoni ayaa sawirkan soo dhigay bartiisa Instagram-ka kadib markii xalay kulankii Barca iyo Inter uu soo dhamaaday. tusaale noolba bixinaya Bastoni waxa uu leeyahay saasi ayaan dhulka idin jiidnay walla Talyaani shood ma yaqaan Black wiilkiira surko jiido sidani ayuu kaga qaadanayay kubadda walla baaxa kul ayay la kulantay Barcelona xalay gooli waa shabaga ayaa lagaga dhigay filinkii Mourinho ay soo daawadeen Inter runtii Barca dharbaaxa kul ay arinkan ku noqon dhanka stoorta ciyaartayda haystay Barcelona maamulaysa laakiin maxay kaaga taala saddexdii dhibcood waa laga qaaday muhiimaduna intaasi ay ahayd. tababaraha kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti waxa uu sheegay xilliga Real Madrid uu ka tagi karo tababarahan waa ka warqaba haddii sanadkani uu meel fiican uu kooxda gaarsiin waayo hadduu lumiyo championka amaba uu lumiyo horyaalka Spain ee La Liga oo ka warqaba in shaqada laga caydin doono isagoo taasi ka sii careyna ku dhacdo sidii 2014 markii uu kooxda championka u qaaday sanadkii ku xiga uu ka soo haray ee shaqada laga caydiyay tii ayuu ka cararaya in warar su'aalo la weydiiyay ayuu ku sheegay in sanadkan markuu dhamaado uu eegi doono inuu kooxdu sii joogi karo iyo waliba in kale. Barca in Real Madrid saddex tababare ay isha ku haysaa inay ku bedesho Ancelotti waxa weeye tababaraha kooxdaasi Bayern Eastern jirka tababaraha da'da yar Nagelsmann oo xidiga jooga kooxdaasi Real Madrid ay ka weyn sida Luka Modric ay ka wada waaweyn yihiin ayaa ay isha ku haysaa oo laga yaabo inuu noqon karo tababaraha kooxda Real Madrid ay ku haysaa 2020 waxaan ka warqabnaa in tababarahani oo kooxda RB Leipzig uu soo gaarsiiyay semifinalka oo runtii uu meel fiican soo gaarsiin kasto liga uu la qaaday oo runtii uu cadreynayo soo kale waxa ku jira in liiska ku kooxda Real Madrid halyeegooda Raul Gonzalez oo ah tababaraha daayirka kooxdaasi Real Madrid ee la yaqaan Castilla sidoo kale waxa ku jira halyeeg kale Xavi Alonso oo isaguna leeliya daayirka kooxdaasi Real Sociedad labadaniba daayirada kooxa kamid ah horyaalka Spain ay leeliyaan waxaana ay diiradda u saaran yihiin in Barca oo raadinaya bedelka Ancelotti inkastoo jiraan tababarayaal kale oo isha ku haya haddana saddexdan tababare ayaa aad loola xidhnaya in lagu bedeli karo Ancelotti oo isaguba haddaba shaqsi galiyay shaqadiisa Real Madrid oo cabsi ka qabo in sanadkan haddii gool xun ay soo gaaraan shaqada laga caydin karo arinkaas ayuu ka sii cararaya Realna tababarayaashaasi ay isha ku haysaa. kooxda Manchester ayaa durba kala hadlaysa Erling Haaland heshiis cusub oo ku jiro qodob dhigaya in 2 sano kadib ay fasaxi doonaan laacibkana haddii Real Madrid ay soo dalbato walla Real Madrid oo inagu hesha Haaland ayaa waqti u helaya yaa qabanaya kooxdani yaa qaban karaya isagoo Manchester jooga ayuu sanadkan ina waalaya runtii horyaalka La Liga oo ka fudud Premier League san nagu galayay yaa wax ka qabanay Real Madrid 14 champion baa laga cabanayay haddii 6 isku xiga ay qaadi weydo runtii ay Haaland nagu hesho Real Madrid waxba laga qaban karin maayo aniga kule Real Madrid haddii nagu hesho wararkii hore sheegay inuu tagi karayo marba marka dambe soo taray imika waa taasi waxay doonaysaa Man City in lacag ka samayso oo Haaland ay 2 sano kadib haddii Real ay dalab rasmi ah ka soo gudbiso inkastoo da'da Benzema ay sii weynaanayso ay doonayso bedel labadan xidig mid baa u saaran waa Mbappe amba Haaland baa laga yaabaa inay qaato dhanka gool dhalinta ka fiican ay bay u baahan yihiin Real Madrid baalaha inta badan ciyaartoyo haystaan oo ninka waxa uu ka fiican yahay baal marka la eego Mbappe laakiin ninkani baalkaaga ma ciyaari kara Haaland oo inta badan ninka ayuu top u ku yahay Real Madrid oo kan ugu hesha walla inayna inagu waxba ka qaban karnin waxaanu sugnaa waxa weeyeen championkooda 16 sidaas u wadaano yaa qabanaya iyagoo Haaland imikayna Marouane iyagoo weeryahankani cajiibka inagu hela
City sanadkan haddii kaga faa'iideysan weydo iyadaa habaaran. Bayern ayaa waxay dhigtay rikoodh cusub oo championka weliba heerka guruubyada. Rikoodh cusub ayay sameynaysaa iyadoo aan 31 kulan oo heerka guruubyada championka aanay wax guuldaraa aanay la kulmin. Runtii waa rikoodh cusub oo aad u dheer oo kooxdani Bayern ay xidhay. Waa kaasi 31 kulan weli wax guuldaraa lamay kulmin kooxdani Bayern. waa taasi waa caddaynaysaa Bayern. Arsenal ayadu waxay heshiis hordhac ah ay la gaadhay xidigeeda da'da yar ee aad ay loo dhacsan tahay qaab ciyaareedkiisa Bukayo Saka. waxay doonaysaa Arsenal inaanay xidigaheeda da'da yar ee muhiimka ee 15 sano soo socda 10 sano soo socda ay nagu maamuli karto. inay waxay doonaysaa ay si adkaysato oo aanay si fudud aanay uga bixi karin oo heshiiskooda gabaabsiin aanay ka warhelin ayay doonaysaa oo ay imika kasii tashato xidigeeda muhiimka sida William Saliba imika ay wada hadal kula jirto Martinelli oo kale. inkastoo Nketiah isaga ay heshiis ka saxeeday imikana Saka ay rabta Odegaard xidigaasi dhama rabta inay si fudud ay uga baxaan waayo waa xidigu da'yara oo 10 sano iyo 15 sano soo socdaba Arsenal nagu maamuli karto. runtii waana kuwa sanadkani waxyaabaha faraha badan ka bedelay ee Arsenal aynaan garanayn ay soo baxday oo horyaalkiima kaba haysata. waana kooxda kaliya City la tartamaysa sanadkani. Arsenal way kooxda kaliya la tartamaysa. kooxda la tartami jirtay sanadkani waa seexatay Liverpool iyadu kuma jirto tartanka. haddaanay weli waa bilow horyaalka haddaanay xag dambe ka soo kicin sanadkan waxa muuqata inaanay shuqul iyo shaqo toona aanay ku lahayn horyaalka kooxda Liverpool oo Arsenal baa sanadkan la tartamaysa. markaas xidigeeda da'deer ma rabto in si fudud ay uga bixi karaan. Real Madrid oo iyaduna caawa horyaalka championka ciyaaraysa ayaa waxaan eegi doonaa wararka ka soo baxaya kooxaha xidigaha seegaya kulamada adag ee jira. Courtois ayaa weli waxa la filayaa inuu ka maqnaan karo inkastoo weliba Courtois iska daa champion kulanka El Clasico looga baqayo inuu seegi karo. sidoo kale waxa la leeyahay Camavinga ay isagu tababarka si gaar ah u qaadanayay. waxaan leeyahay taasi waxay macno tahay in kulankani uu seegi karo waanu ciyaari karin laacibkani kasto oo isagu si gaar ah tababarka u qaadanayay. sidoo kale Ancelotti ayaa la filayaa inaanu halis gelin Modric waayo kulankii El Clasico ayaa ku soo dhow. markaasi kulankani ma rabo inuu halis geliyo Modric oo isniintii ku soo laabtay tababarka. waxa la filayaa in khadka dhexe Real Madrid aynu ku aragno Valverde, Tchouaméni iyo waliba Kroos. saddexdaas xidiga khadka dhexe inaynu ku aragno ayaa macquul ah waayo Modric iyo waliba Camavinga iyagu dhaawac weeye. waxaanu diidayaa in Modric uu kulanka El Clasico seego oo uu halis geliyo kulankani. kulan kale weyn baa jira ee Chelsea waliba AC Milan. runtii waa kulan weyn oo caalami ah. Chelsea ayaa waxay soo dhaweyn doontaa kooxda AC Milan oo iyadoo hogaaminaysa groupkani halka Chelsea ay ugu hooseyso oo hal dhibic ay siisto hal kulan ay barbaraysay. iyadoo Chelsea waa ugu hooseysa AC Milanna waa hogaaminaysa groupkani. Potter ayaa waxa uu sheegay in kulankani oo Kante iyo waliba Eduardo Mendy Cucurella xidigaasi ay taam yihiin oo kulankan ay ku soo laaban karaan inkastoo muddo gaaban ay dhaawac ka maqnaan. Kante isagu muddo dheer ayuu dhaawac kaga maqnaa imika ayuu dib u helayaa tababarahani. kulankani waa taam ayuu leeyahay. waxa la filayaa in kulankani uu ku soo bilaaban karo. Kante xidigani khadka dhexe burburiyaha ee kooxda Chelsea ay u jabtay ayaa la filayaa inuu soo laaban karo. halka AC Milan iyadu ay weli xidiga fara badan oo muhiim ah ay ka maqan yihiin. Ibrahimovic baa ka maqan, Origi, Theo Hernandez iyo waliba goolhayahooda Mignan. xidigaasi oo muhiim u ah AC Milan ayaa ka maqan. waxaan la filayaa in kulankani caawa ay la wada xidiga Jiro iyo waliba Tomori ay wajihi doonaan kooxdoodii hore oo markoodii ugu horeysay ay ka hortegi karaan kooxdooda Chelsea. Origi waxa weeye xidiga dhawaan ay kooxda AC Milan ay la soo wareegtay. runtii qaab ciyaareedkan ku baranay in xilliyada dambe oo kaga furfuri jiray kooxda Liverpool waa ka waayeen. sanadkanna waxa loo doortay inuu ahaa saxiixii ugu xumaa ee horyaalka Serie A la sameeyo ayuu noqday kadib markii ay ku fashilmay inuu la qabsado kooxda AC Milan oo qaab ciyaareed fiican uu ka soo bandhigo si loogu bartay kulamada lagu soo bilaabo iyo kulamada marka weeraryahanada waaweyn wax laga waayo
uu goolka dhalin jiray tii waa ka laayinoo saxiix ugu xumaa ayuu doorteen laacibkana kooxda AC Milan. Kulamadaasi waaweyn ayaa caawa jira, kulankooda adag oo kulankana AC Milan iyo Chelsea. In wararkeena ciyaar wanaagsan taas saaxiibayaal intaynu kulmi doono wararkeena